رسول الله رسولك إلهي وكا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. عدنان باتفاق العلماء ومن ولد إسماعيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ودرسي لباد دروسي أنكو قادنين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. درسيgeena maanto oo darsigii labaada waxaan ka hadlaynaa nasabuhu wa wafaatu waalidihi. nasabkii nebiga, abtirsiintii nebiga calayhi salaatu wassalaam, iyo wa wafaatu waalidihi, dhimashadii waalidkii nebiga aabbihii uu dhintay. waaliduhu, nebiga waalidkiisu magiciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab. waa in la xafido abtirsiinta nebiga sala allahu calayhi wasalam, waa in la xafido. waa darsigeenii labaad. waxaan rabnaa darsi walba in la xafido intaa yar ee kooban. nebigu waalidkiisu waa cabdillaahi ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab. intaasaan ku joojinaynaa si loo xafido, liannahu nasabkiisu ilaa nebi ismaaciil ilaa nebi ibraahim ayuu gala calayhi salaatu wassalaam. kilaab, odayga awowgiya ee kilaab la yidhaahdo, kilaab waxaa loogu bixiyey wuxuu ku ugaarhsanayey ayda, markaasaa kilaab loo yidhi. wa ummuhu, nebiga hooyadiina magaceegu wuxuu ahaa aamina bintu wahbin binu cabdimanaaf binu zuhra binu kilaab. wa ummuhu, nebiga hooyadiina aamina bintu wahb binu cabdimanaaf binu zuhra binu kilaab. kilaabtii baa markaa la timid. fatajtamicu, waxay ku kulmaan ummuhu hooyadii maca waalidihi, nebiga waalidkii oo aabbihiiya, waxay ku kulmaan fii jaddihi alkhaamis, awowgiisa shanaad oo ah wahuwa kilaab. awowgaa shanaad ayay nasabka nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam hooyadii iyo nasabka aabbihii awowga shanaad ayay ku kulmaan. fatajtamicu, waxay kula kulantaa ummuhu hooyadii maca waalidihi aabbihii fii jaddihi awowgii alkhaamis ee shanaad wahuwa kilaab, odayga kilaab la yidhaahdo ayay ku kulmaan. walaqad tuwafiya, wuu dhintay, waaliduhu, nebiga waalidkii wuu dhintay, aabbihii, wa huwa xaalo uu nebiguna uu yahay fii batni ummihi, caloosha hooyadii uu ku jiro ayuu dhintay aabbihii. nebigu aabbihii ma arag, isagoo caloosha hooyadii ku jira ayuu dhintay aabbihii. wa cumruhu, nebiga aabbihii cumrigiisu waxa uu ahaa 18 sana, 18 jir ayuu ahaa. wiil yar oo dhalinyara ayuu ahaa markuu dhintay nebiga aabbihii. wa dufina, waxaa lagu aasay bilmadiina, madiine ayaa lagu aasay, madiina almunawara. walam yatruk, ugamuu tegin lahu nebiga shay-an min almaali, wax maalu oo shaya uu uga tegay ma jiro oo yudkar oo la xuso, wax weyn ugama tegin. yacni culummadu waxay yidhaahdaan wuxuu uga tegay 5 rati ama geela, iyo haweenaydii u shaqaynaysay oo umu ayman la oranayey ee xabashiyadda ahayd, iyo waxoogaa yar xan yaroo adhiya
oo kooban ayuu uga tegey wax kale oo uga tegey male walaqad tuwafiya wuu dhintay waaliduhu nebiga waalidkii calayhi salaatu wassalaam wa huwa nebiguna xaalo oo ahaa fii batni ummihi caloosha hooyadii uu ku jiro ayuu aabbihii dhintay wa cumruhu nebiga aabbihii cumrigiisu waxa uu ahaa 18 sana 18 jir ayuu ahaa wa dufina waxaa lagu aasay nebiga aabbihii bilmadiina madiine ayaa lagu aasay walam yatruk lahu nebiga ugamuu tegin shay-an min almaali shay oo maala ugamuu tegin oo yudkar yacni la sheego oo badan ugamuu tegin 5 awr iyo wuxuu uga tegey haweenaydaa yare u shaqaynaysa umu ayman iyo waxoogaa yar oo xan yar oo adhiya oo kooban ayuu uga tegey bes as'ila markaa su'aalo maa nasabuhu nebiga nasabkiisa sheeg min jihati abiihi jihada aabihi marka laga eego sheeg moxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmutalib sheeg maa nasabuhu nebiga nasabkiisii muxuu ahaa min jihati ummihi dhinaca hooyadii marka laga eego nasabkii hooyadiina sheeg nebiga calayhi salaatu wassalaam maxaa la odhanaya aamina bintu wahab haye binu cabdimanaaf ha la xafido fii ayi jaddin awowgee ayay tajtamicu ku kulmayeen ummuhu maca abiihi hooyadii iyo aabihii awowgee ku kulmayeen wa huwa kilaab awowga la yidhaahdo awowga 5aad ayuu ahaa mataa tawafiya xilima ayuu dhintay waaliduhu nebiga waalidkii xilimuu dhintay sheeg isagoo caloosha hooyadii ku jira nebigu isagoo oo 18 jira ayuu dhintay ayna dufina xaggee lagu aasay madiina wax xoolaama uga tegay in yar mooyaane wax kale ugamuu tegin alkhulaasa khulaasuhu waa nuxurka waa hadalkii oo soo kooban oo si gaaban lagugu sheegayo waa si aad u xafidid abuuhu nebiga aabihii cabdullaahi ibni cabdilmutalib baa la odhanayay cabdullaahi ibnu cabdilmutalib ayaa la odhanayay wa ummuhu hooyadiina aamina bintu wahab ayaa la odhanayay yaltaqi waxay ku kulmaan nasabuhumaa nasabkoogu fii jaddihi alkhaamis awowgiisa 5aad ayay ku kulmaan oo ayaa kilaab maata wuu dhintay abuuhu nebiga aabihii wa huwa nebiguna xaalo uu ahaa fii batni ummihi caloosha hooyadii uu ku jiray ayuu dhintay aabihii darsi kale oo 3aad baan gelaynaa wilaadatuhu dhalashadii nebigu uu dhalanayey sala allahu calayhi wasalam wa radaacatuhu iyo nuujintii naaska la nuujinayay nebiga calayhi salaatu wassalaam wilaadatuhu waa dhalashadii nebigu uu dhalanayey sala allahu calayhi wasalam wa ridaacatuhu iyo naas nuujintiisa ridaaca iyo radaaca labaduba waa sax wulida waxaa la dhalay sala allahu calayhi wasalam nebiga bimaka maka ayuu ku dhashay nebigu dhulka ilaahay meesha ugu khayrka badan ugu fadliga badan maka almukarama ayuu nebigu ku dhashay yowma alithnain maalin isniina ayuu nebigu dhashay shaki male xadiiskii saxiix muslim ayaa ku yimid nebigu inuu dhashay maalin isniina 12 12 ay tahay min rabiici alawal bisha rabiicu alawal la yidhaahdee mawlidka la yidhaahdo 12 ayay ahayd caam alfiil waa sanadkii maroodiga ayaa la yidhaahdaa idan waxaa laguu sheegay nebigu inuu dhashay maalin isniina inuu ku dhashay maka almukarama bishu inay ahayd bisha la yidhaahdo rabiicu alawal oo bisha mawlidka ah oo ka ahayd 12 sanadkaa in la odhanaya caamulfiil sanadkii maroodiga wulida waa la dhalay sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay bimakkata maka ayaa lagu dhalay yowma alithnaini maalin isniina 12 12 ay tahay min rabiici alawal bisha rabiicu alawal ay 12 tahay caam alfiil
sanadkii maroodiga. muxuu yahay sanadka maroodiga? maxaa loogu bixiyey sanadkii maroodiga? wa sumiya waxaa loogu magac qaabay ama loogu bixiyey caama wilaadatihi sanadkaa nebigu uu dhashay. caamalfiil waxaa loogu bixiyey lianna melika alxabasha boqorkii xabash maamulayey ee boqor ka ahaa ayaa arsala waxa uu diray caama wilaadatihi sanadka nebigu uu dhashay jeyshan ciidan ayuu diray ilaa maka ayuu ciidan u diray. muxuu ugu dirayaa? liyahdima alkacbata si uu kacbada u dumiyo. wa kaana fiihi waxaa ku dhex jiray ciidankaana fiilun ciidankaa waxaa ku dhex jiray fiilun maroodiyaal waaweyn oo cadiimun waaweyn ayaa ku jiray. fa ahlaka allaahu ilaahay wuu halaagay aljeysha ciidankaasi ikraaman isaga oo ilaahay karaamaynaya wanaajinaya liwilaadati nebiyi nebiga dhaladkiisa uu nebigu dhalanayo bishaasi sala allahu calayhi wasalam. sanadkaa waxaa loogu bixiyey caamulfiil waxaa loogu bixiyey ninkii abraha la odhanayey ee yeman u joogay xabash u joogay boqorka xabash ayuu yeman u joogay ayaa waxa uu maqlay maka iyo warkeega iyo dadku inay u xajiyaanoo xoolo badan xaggaa lala tago ayuu maqlay. waxa uu doonay inuu dadka ka hor joogsado makadaa la tegayo. kiniisad weyn ayuu dhisay, magac buu u bixiyey, si qurux badan buu u dhisay. dadkii carabta ee maka tegi jiray ee u xajiyi jiray ayaa waxa uu ku yidhi waa inaad xaggan u soo xajidaan. maka joojiye buu yidhi iyo warkeega, waa in maka la joojiyo oo meeshan sanca aan ka sameeyey waa in loo soo xajiyo. meesha wuu qurxiyey. odaygii boqorka ahaa ee najaashi ahaa ee u joogay etoobiya joogayna uu wargeliyey boqorkiisii. arrintii ayaa warkiibaa faafay carabta dhexdoodii. nin caraba oo bedowa ayaa arrintii aada uga xanaaqay. habeen buu u soo dhuuntay, meeshii buu saxaraha ku dhigay oo waxbuu dhigay, kadibna gidaarku ku masaxay, kadibna meeshii dab buu qabadsiiyey, wuu baxsaday. warkii baa la gaarsiiyey abraha wuu xanaaqay, wuxuu ku dhaartay inuu kacbada maka inuu soo duminayo. arrintiina wuxuu gaarsiiyey boqorkiisii xabasha ee najaashi ayuu gaarsiiyey. uu yidhi saasaa dhacday. ciidan marka waxaa loo soo diray maroodiyaal ayaa loo soo diray fara badan. ciidan wuxuu kaxaystay 60,000 oo ciidan ayuu kaxaystay. weerar buu markaa qaaday isaga oo doonaya kacbada inuu soo dumiyo. miyuuna garanayn kacbadan inuu ilaahay leeyahay? miyuuna ogeyn inuu ilaahay gurigiisa uu ilaalsanayo? qoraysh way ka yaacday. ciidankaa markii ay maqashay iyo soo socodkaa la soo socdo maroodiyaasha iyo waxaas way ka yaaceen. waxay yidhaahdaan inna lilbeyti rabban yaxmiihi, gurigan wuxuu iska leeyahay rabbi ilaalinaya. buurta iska fuuleen. ciidankaasi xagga iyo maka markuu u soo dhowaaday, maroodigii ugu horeeyaa iska fadhiista. wuu fadhiista, wuu diiday inuu kaco. way isku dayeen, dhinac walba wuu u kacayaa, wuu ordayaa, laakiin dhinaca beytka ilaahay wuu iska diiday. iyakoo xaaladdaa ku jira ayuu ilaahay soo diray askartiis. wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa. askarta ilaahay way fara badan yihin, waa wax walba. askar ilaahay ayuu ilaahay soo diray shimbiro. shimbirahaasi midkii walba 3 dhagax ayay wadaa. ciidankiibay iskortaagtay, xaggiibay ku madheen, way baaba'een. waa ka ilaahay ka waramaya alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil. nebi allo muuna ku soo gaadhin warkii asxaabulfiil. ilaahay wuxuu gaarsiiyey alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil. xumaantii iyo makrintii iyo wixii ay u socdeen ilaahay muna baaba ka dhigin. wa arsala calayhim tayran abaabiil, muna ilaahay shimbira ku soo dirin oo shimbirahaasi ay dhagax ku tuurayaan. tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul. ilaahay waxa uu ka dhigay sidii beer lagu tuntay oo xoolaha intii lagu soo daayey
ay ku tunteen oo kale meydkoogii iyo ilaahay uu baabi'iyey iyada oo 50 cisho laga joogo oo meydkii uu sii muuqdo raqdii meesha taalay ayuu nebigu dhashay sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa karaamaynayo wakhtigaasi nebi maxamed uu dhalanayo in kacbadii ilaahay la dumiyo ilaahay wuu diiday ilaahay wuxuu sharfinayaa dhalashada nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuxuu ilaalinayaa gurigiisa beydkiisa alxaraam ayuu ilaahay ilaalinayaa wakhtigaasi ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu wassalaam وسمي وحا لوغو بخي عام ولادته سنة كاو نبيغو دشي عام الفيل سنة كي مروديغا وحا لوغو بخي لأن ملك الحبش بقر كي حبش أيا أصدري أبرهة الأشرم يوچوغي يمن أيو أصدري أمر وليه عيدا در أصابا بئي ماشا سيسو دمي كعبدا لأن ملك الحبش بقر كي حبش أيا أرسل وحا أصدر عام ولادته سنة كاو نبيغو دشي جيشا عيدا بصدري إلى مكة أصدري محوق أصدري لهدم الكعبة كعبة سلو دميو وكان فيه عيدا كاو صدر أو لحدا كن أها وحا كدح جري فيل مروديال عظيم أو وين أيا كدح جري فأهلك الله إلهي وهلاقي الجيش عيدا كي إكراما ومفعول لأجله إلهي وحو أهلاقي إساقو كرامين يا لولادة النبي نبي قد الشديس صلى الله عليه وسلم نبي أيا دلانيا مركا نبي شرفين لشرفين يا وقتي ودلانيا أيو إلهي وهلاقي وأرضعته waxaa naaska nuujisay nebiga calayhi salaatu wassalaam bacda ummihi hooyadii kadib haweenayda la odhanayay thuwaybah alaslamiya ayaa naaska nuujisay hooyadii markay dhimatay nebiga waxaa naaska nuujiyey oo soo koriyey haweenayda la odhanayay thuwayba alaslamiya ayaa naaska nuujisay oo ahayd khaadimadii u shaqaynaysay khaadimatu cammihi khaadimadii u shaqaynaysay adeerkii abi aalib abulahabna waa la yidhi ثم انتا كدب حليمة السعدية هويني دي حليمة السعدية اللي أرني أيا الناس كنوجيسو نبي باديها أقاضي إلى أن بلغ إلى أكجاري نبي عمريسو 4 سنوات 4 سنة أكجاري وأرضعته وحا الناس كنوجيسي بعد أمه هو يدي كدب نبي ثويبة الأسلمية هويني دي اللي ثويبة الأسلمية أو أهيد خادمة عمه تيو أديرس أخدمين سي أديرك أبي طالب أبو لهب نواليرية ثم انت كدب حليمة السعدية أي النبي الناس كنوجيس حليمة السعدية أو يدو أقادتي رلك أيميغا إلى أن بلغ إلى أنتو كجاري النبي عمريسو دأديسو 4 سنوات 4 سنة كجاري 4 سنة إلى وكجاري باديهاس أيو جوجي باديه waxaa loo geeyay luqada ayuu baranayay jirkiisa adkaanayay way ka caafimaad badneed magaalada nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku soo koray ku soo barbaaray baadiyaha su'aalaha aan iska weydiinayno waxa weeyaan mata wulida sallallahu alayhi wasallam nabigu xilima ayuu dhashay waa inaad sheegtid ayna wulida xagu ku dhashay nabigu وأين تشيكتيد لماذا سمي محالو بحي عام ولادته سنة كاو نبيغو أردشي عام الفيل محالو بحي من أرضعته أيان ناس كنوشيسي بعد أمه هو يدي كتب انت وإلا قد جوابه خلاصة الدرس غني ولد نبيغو وحا أردشي بمكة مكة عام الفيل سنة كي مروديغا وأرضعته ناسك وحا نوجيسي ثويبة الأسلمية هوين دي لأورانية ثم انتا كدب حليمة السعدية أيان ناسك نوجيسي درسيغان الله بقى صدحات من حقا كسي قادة دون هدو إلهي هذا والسلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
إنه خير الأنام اللهم صل عليه نوره يجلو الظلام اللهم صل عليه إنه خير الأنام اللهم صل عليه نوره يجلو الظلام اللهم صل عليه سيدي بدر التمام اللهم صل عليه ربنا صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه إنه خير الأنام اللهم صل عليه نوره يجلو الظلام اللهم صل عليه إنه خير الأنام اللهم صل عليه نوره يجلو الظلام اللهم صل عليه سيدي بدر التمام اللهم صل عليه ربنا صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه حبه الغالي أقام اللهم صل عليه في فؤادي يا سلام اللهم صل عليه حبه الغالي أقام اللهم صل عليه في فؤادي يا سلام اللهم صل عليه بلسما داوى السقام اللهم صل عليه ربنا صلى عليه